السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعشر كيني كحجي عشر كيني هراء إن شاء الله وحنا عشر كيننا كجهد دونا قدر رنتي استراتيجية دينا يسيستم كاين استعمال دونا رنتي مهمة oo ah waxa loo yaqaano liquidity pool oo concept ka aynu dhiganayno inay nagu jirtay ama loo yaqaano liquidity line labadaba waa loo bixiyaa liquidity pool iyo liquidity line waa macna xariiqda harista ah ama ceel lacageed labadaba waa loo yaqaanaa waa runtii qodobka aynu oran karno aad iyo aad buu muhiim u yahay sababtu aad iyo aad ka muhiimka ugu yahayna waa qodobka labaad ee labeeyo waxa loo yaqaano trendiga suuqa trend suuqa marketka marka laga hadlayo runtii muhiimka ah waayo muhiim u yahay waxa uu muhiim u yahay waa meesha qura ee ilaa yar la jabiyo ama ilaa lacagta taala la soo qaato aan suuqa si sax loo dhaqaajin si aad ogtahay suuqani de lacag buu ku shaqeeyaa waxa laga shaqeeyaa waa lacag si lacag loo helo waa in dad lacagtood la khasaariyo si ay dadka kale u faa'iidaan concept-ka uu ku dhisan yahayba ayaa sidaasa waxaan loo yaqaano trendinga ama suuqa uu ku dhisan yahay haddaba waa maxay liquidity ama liquidity line ama liquidity pool taa doonta u bixiyo sideebada u sameysmaysa as a trader ahaan ama dadku waxay badankoodu u yaqaan ama waxa retail traders loo yaqaano retail traders wax mooyeen waa dadka shacabka waa aniga iyo adiga iyo dadka kale bilaayiinta haysta aday doonaan 30 sano ku jiraan ama 30 sano ku jiraan institutionskuna waa dadka u trade gareeya dawladaha bangiyada iyo cid kasta oo macna ku abtirsata institution haddaba waxa jira waxyaabo ay isticmaalaan dadku waxaad ogtahay runtii inay isticmaalaan wax loo yaqaano double top triple top Allahumma musta'anay support resistance waxyaabahaas oo dhan sababaha inuu isticmaalaa waxa weeyaan suuq wuxuu sameeyaa tusaale ahaan dhaqaaq buu soo sameeyaa kadibna dhaqaaqii uu soo sameeyay suuqana uptrend buu ahaa sida tan ayuu suuqan u socday oo kaleera suuqiisan u soo socday ayaa maalmaha kamida halkan waxa uu kala kulmay level ama key level ama resistance level ama support level waxay doontaan noqoto halkan buu kala kulmay suuqi maxaa ku dhici doonta waxa suuqi ku dhici doonta inuu suuq halkan ka soo kala jeesto oo uu ka soo sameeyo dhaqaaq isla dhaqaaqii meeshii uu ka sameeyay ayuu mar labaad soo noqday marka labaad ee suuqu uu yimaado halka maxaynu bixinaa waxaynu u bixinaa level ah double top ayaynu bixinaa haddii suuqu halkaa ka soo jeesto oo uu soo sameeyo waxa loo yaqaano reversal oo uu ka soo noqdo waxay noqon doontaa halkaasi double top waa sax waa double top laakiin ogow double topkaasi waa meesha dadka badan lagu gaadi doono ee dadka badan lacagtooda lagu khasaarin doono haday mar kale isdhaadaan wagala iyagoo xisaabsanaya double topkan double top markii sidaa tahay bay hadda ayay tahay oo la doonayo inaad confirmation iskaaga iyo waxaagii markaad heshid aad trade ka qaadid laakiin oo read hadii lagaba tago meeshii oo saalo ay u simanto waxa ka dhici doonta wax loo yaqaano way isku bedeli doontaa liquidity ay isku bedeli doontaa ama liquidity line ay isku bedeli doontaa waxa hadhow toolo ku dhici doona waxaynu gaar u baran doono oo loo yaqaano SL hunters waxa dadkan oo dhan lagaga saari doona dhaqaaq xawliya lagaga saari doona oo SL ka ayaa lagaga dhufan doona kadib baa laga yaabaa in suuqa ama directionkiisa ku sii socdo ama uu maxay sameeyo ama uu soo kala jeesto oo hadii uu trendiga suuqu dhamaadina sell uu soo aadi doona qodobka uu isla fahnay baan filayaa sideebay u timaadaa waxay u iman doontaa meel suuqu adaad aragtidba meel suuqa siman laba jeer ama saddex jeer meel suuqa laga celceliyay oo sidan oo kale ah hadaad aragtid meel ma doonaysi runtii lama doonayo meesha inay saas oo kala dheeraato lama doonayo waa muhiim inay labada hore saw simaan kadibna suuqa laga celiyay mar kale hadana la keenay haduu doono laga celiyay marka kale uu ka gaaban karaa uu kama dheeraan karo haduu ka dheeraado already lacagti waa la qaatay laakiin uu ka gaaban karaa hadii uu la simana waa sax hadaad aragto meel sidaasa waxaad leedahay maxay waa liquidity halkan waxa taala xariiq halis ayaa taala gaar baynu baran doonaa sida loo jabiyay waxa lagu jabin doonaba halkan sidoo kale maxaa arkaysaa iyaduna inay tahay meel iyaduna liquidity oo ay liquidity taalo meel shaasaa u siman ayaa loo yaqaan liquidity line oo la doonayo runtii inaad iska ilaalisid oo aad ku baraarugsanaad qofka traderka hadii aanu waxyaabo badan maskaxda ku wada hayn karin runtii lagama yaabo inuu guuleysto waxa khasaba inaad waxyaabo badan niyada ku wada haysid oo waxyaabo badan aad markaas la doonayo in aad isticmaashid concept-kaaga iyo niyadaada adigoo kaashanaya iyo cilmigaaga inaad niyada ku wada haysid tusaale ahaan hadda halkan aynu eegno hadda halkan aynu lacagtan aad arkaysaa waxa weeyaan ma filaya euro USD ayaan tusaalayaal ku saabsan baynu insha Allah dooni doonaa okay haddaad u fiirsatid hadda lacagta tana haddaad u fiirsatid
aynu halkan u fiirsano runtii u fiirso maxay samaysay halkan kana maxay samaysay equal high ayay samaysay halkan maxay ka samaysay equal high bay samaysay equal high markay samaysay ma xume maxay samaysay oo ku xigay qofka markay halkaa kusoo noqoto markii hore ay ku ahayd tusaale ahaan halkaa layn ku yaalay kow waa laga daatay laba waa laga daatay marka saddexaad maxaad sugaysaa miyaad sugaysaa in laga daato waa maya waxaad sugaysaa in meeshii laga saro maro marka saa looga saro maro waxaad leedahay mararka qaarkood wuxuu noqon karaa 3 kandhal 4 kandhal 5 kandhal 6 kandhal 10 kandhal mararka qaarkood buu iska socon karaa ma go'aamin kartid just waxaad go'aamin kartaa adigu in halkan liquidity buu tahay laakiin waxa lagu go'aaminaya halku ka soo noqonay waxaan ku baran doonaa waxa laba shay baa naga caawin doona oo order block ayaa naga caawin doona iyo qodob kale isagana insha Allah inuu dhigan doono hadda waxaad arkaysaa in la jabiyay markii la jabiyay waxa suuq lagu sameeyay waa he laga soo daadiyay laba qolabaalkan way ku khasaaraysaa runtii saad arkaysid waa qolada koowaad qoladii horta halka sel uga gashay qoladii halkan sel limit ama ka galeysay halkan doonaysa inay ka soo gasho horta asalka laga dhufanaya oo de waxana wuxuu hadda suuq kacay saad arkaysid 60 biib ku dhawaad 60 biib de SL cidna xamili mayso qolada waa laga saaraya qolo kalena beenguur baa loo sameeynayo qolada isticmaasha break and retest intuu suuq meel jabiyo ku soo noqdo aaminsan inuu saas oo kale suuq sameyn doono ka sii socon doonana iyadana sidoo kale cirka ayaa loo diri doonaa oo meesha waa laga tuuri doonaa waa laga saari doonaa qodobkan waxa la yiraahdaa insha Allah iyadana waynu baran doonaa waxaad arkaysaa hadda in suuqu uu meeshii jabiyay si ka leera bal meelo kale aynu ka baadhno halkan maxay tahay halkan suuqu ka soo kacay maxay tahay equal weeyaan equal waa equal u tahay halkaas waa equal u tahay koow waa laga kacay laba waa laga kacay saddex waa loo soo dhawaaday laakiin lagama kicin waxaad aamini doontaa inay meeshaasi ku tahay liquidity miyaad gelaysaa ma gelaysid waad joogaysaa ilaa suuqu uu jabinayo oo uu cunayo cunitaankani halku tago iyo waxa la yiraahdo waynu baran doonaa si aynu uga faa'iideyno oo aynu u raacno dhaqaaqan bartan ka bilaabi doona si aynu u qabsano istiraatiijiyadeenuba inta ay ku dhisantay intaas noqon doonta insha Allah runtii u fiirsa halkan waxa dhacay qodobkii markii hore aynu sharaxaynay ku jiray casharkii ka horeeyay ku sharaxaynay maxaynu ahayn order block baynu sharaxaynay maalintii hore trend baynu sharaxnay isla isku waafajiyaynu sharaxnay order block baynu soo sharaxnay oo tusaale ahaan halkan oo kale aad arkaysid muxuu suuqu sameeyay de waa order block waayo order block halkan u tahay because suuqu wuxuu halkan ka sameeyay inuu xoog uga kacay levelkii ka soo horjeeday leftigan ka xigana uu meesha ka saaray uu cunay suuqu maalinku barta kugu soo noqonayay muxuu ku sameeyay qolo ayaa lacagtii liquidity la soo cunay halkan trade-kaaga waad ka active kareysan leed oo waad ka qaadan leed oo waxa intaas dhan kacay ayaad noqon leed inaad mid ka faa'iideysto noqon leed hadii aad qodobadan fahansanaan lahayd okay haddaba liquidity-ga kor iyo hoos labadaba way ka dhici kartaa sidoo kale trendiga labadiisa dhanba way ka dhici kartaa u fiirso suuqan ugu dhaqaaqay halkan wuxuu ka samaystay waxa loo yaqaano liquidity ayuu ka samaystay waayo liquidity u tahay because way siman tahay waa laga kacay haddana mar labaad baa laga kacay laba jeer oo isku mid ah laga kacay mar saddexaad miyaa laga kici doonaa ha filan haddaad xitaa filato waxa uu leeyahay macna trade ka qaadan waad filan kartaa inay ka kici karto ama way ka kici kartaa laakiin waa inaan trade ka qaadan oo waa meel halisa dadkii sadarkiisa maxaa ku dhacay waa SL-ka laga dhuftay ama cirka ayaa loo eegay cirka markii loo eegayna maxay noqotay in suuqii haddana jihadii kale loo dhaqaajiyo oo intaasoo boqol bib loo dhaqaajiyo runtii waa waxyaabaha runtii cajiibka ah ee ay la gaarka tahay waxyaabaha loo yaqaan institutions halkan u fiirsan muxuu suuq ka sameeyay equal buu ka sameeyay uu ka kacay mar labaad kama kicina waa lagu yara hakiyay maadaama lagu hakiyay maxay meesha noqonaysaa liquidity line ay noqonaysaa waa lagu dhuftay kadibna suuqii dhankii kale ayuu aaday runtii u fiirso iyadoo selana insha Allah aynu baadhno oo dhanka kale ee selka loo wado halkan ayaynu ka helaynaa inagoo meel fog baqabanba halkan ayaynu si fiican uga helaynaa waxaad arkaysaa suuqan down trend halkani ay tahay equal low equal high baan leeyahay suuqu uu mitigate gareeyay kadibna suuqa directionkii kale uu soo aaday oo maxay hoos loo soo dhaqaajiyay qodobkaasi waxa uu yahay waxa loo yaqaan liquidity-ga maxaan ku yiri just adiga concept kala doonay inaad fahanto waxa weeyaan war haddaad aragto suuq macna san u soo socday suuq uptrend san kale u socday suuqan waa uptrend maadaama suuqan uptrend yahay ayaad aragtay suuqii halkan
ka galay waxa loo yaqaano sidan oo kale ah saas oo kale ah maxaa la doonayaa halkanna waa order block baad ka ti halkanna waxaad kasoo heshay order block ayaad bartaas oo kale ka heshay maadaama bartaa order block ka helay waxaa la doonayaa suuqa halkan waa liquidity line bartani waa liquidity line waa meel halisa suuqa bartaa bay ha uga raacin oo xitaa hadduu jabiyo korka jabiyo ha iska odhan falaag weeyaan uu jabiyo ha iska odhan waa inaad sugtaa suuqu inta uu bartan ku dhufanayo mitigation bartan inta uu mitigate garaynayo waa inaad sugtaa haddii aad sugaydo runtii asalkaaga ayaad khatar ugu jirtaa waa inaad bartan sugtaa inta uu suuqu ka hoos marayo ee lacagta taalo la soo cunayo aad price action ka helayso sidoo kale order block uu kugu beegmayo markaad qodob ka hesho ayaad leedahay suuqii halkaasan ka raacaya oo hadda active ayuu suuqi yahay halkani waa liquidity macnaa ha odhan suuqii meeshani waa meel aad u adag maadaama 1 2 3 4 5 jeer laga celiyay 6 jeer laga celiyay meeshani waa adagto lama dhaafi karo adkaanshahani waa wax lagugu talagalay inaad adigu isku tuurtid dabeedna lagu dhaado ina mari oo hoos suuqa lagugu celiyo haddii sidoo kale aad aragtid suuq san u soo socday oo dhawnka ku soo socday inaad aragto saas kale u soo socday aad aragto oo halkaas sare ka sibmayna maxaa laga doonayaa waa inaad trade-kaaga bartaa ka gelin oo aanad halkaas sare uga soo qaadan because waa qalad sababta qaladka u tahay waxa weeyaan halkan sare maxaa yaala liquidity waa taala halkan maxaa taala liquidity waa taala maadaama halkan liquidity taalo maalin un baa la jibin doonaa sug inta suuqa halkan saa uga kormarayo maalinku saa uga kormaro trade-kaaga waad soo qaadan kartaa adigoo isticmaalaya ruleski kale iyo kuwa soo socda ee aynu baran doona insha allah qodobkaas liquidity uu aad buu cad yahay baan filayaa waxaynu raacin doonaa oo casharkan aan ka hoos baxayn qodob runtii aad iyo aad u muhiima oo halkan xiriir la leh oon doonaya inaan labadooda doonaya aan isku sidko adigana fahn iyo practical badan runtii kaaga baahan waa waxa loo yaqaano mitigation ama waxa loo yaqaano allahumma istacaanay waxa soo kale la yiraahdaa destroyed candle waa loo yaqaanaa af Soomaalina waxa doonto wada bixi karaysaa sidee waa muxuu noqonayaa waxaas waxa weeyaan waxa meesha mitigate gareynaya weeyaan waxa meesha mitigate gareynaya ayuu noqon doonaa tusaale ahaan halkan waxaynu sheegnay in halkani tahay liquidity suuqani waa abkaas uu ku socday tusaale ahaan halkan buu suuqi isla ka galay suuqi waa saas kale isla halkan ku galay suuqani waa uptrend waynu arkaynaa inuu uptrend yahay laakiin inagu maxaynu filanaynaa before aan abka suuqa loo sii wadin in suuqa hoos loo soo celiyo oo lacagta halkan taala ee ku xayiran laga soo saaro meesha qodobkaasaynu filanaynaa si taasi haddaba u dhacdo waxa ay sameeyaan waxaan institutionska loo yaqaan waxay sameyn doonaan dhaqaaq bay soo dhaqaajin doonaan loo yaqaan mitigation move ama mitigation candle buu noqdaa 2 buu noqdaa 3 buu noqdaa 4 buu noqdaa 5 buu noqdaa dhaqaaq caadi uu noqdaa kolba mar walba waxay ku xiran tahay inta order block loo jiro haddaba dhaqaaqa soo dhacay ee soo noqday ayaa mitigate gareyn doona oo halkan bay suuqi sal uga soo galayaan halkan markay suuqi sal uga soo galaan waxaad doonaysaa in dhaqaaqaagaasi uu kuugu beegmo order block waa in halkan aad ka eegto laftiga inay meelahan order block ku tahay si aad trade-kaaga u active gareysid si aad trade-kaaga u active gareysid waa inay meelahan kuugu beegan tahay wixii loo aqoon jiray order block meelahan baynu ka baaran doonaa order blockgeena markaynu halkaa ka helno trade-keeni halkaas uu active inooga soo noqon doona insha allah trade-keeni halkaas inooga soo noqon doona active inooga soo noqon doona qodobka waa isla fahanimo filaya waxaan u bixinay maxay mitigation waa maxay mitigation waa beenguur la doonayo in dad loo muujiyo suuq inuu sel aadayo dadna loo muujiyo in suuq maxay sameeynayo in allahumma istacaanay uu kala jeestay oo uu down trend aadayo dadna loo muujinay in suuqu hoos socon doono siyada uga badbaadi karaysa waxaad uga badbaadi karaysaa in liquidity-ga soo hesho liquidity-ga marka la jabiyo order block aad hesho labada qodob iyo qodobada kale iyadana insha Allah inoo soo socdo ayaanu fahmi doonaa haddii suuqu soo kala down trend san soo socdayna maxaynu filanaynaa halkan buu suuq soo socday saas uu soo socday halkaas sare ka samaystay highs siman waxaynu filanaynaa in halkan lagu dhufan doono mitigation kadib mitigation-kaasi uu ka kormari doono liquidity-ga halkan ku xirnaa ku beegmi doono order block kadibna trade-keena halkaas aynu ka soo active gareyn doono bal tusaalaha daba aynu eegno in tusaalaha horta intaynaan eegin waa ay sababtan u sameynayaan institutionsku sidaad ogtahay waa dad lacaga badan haysta oo dadka suuqa runtii awood fiican ku leh laakiin ma awoodaan dee dal dhaqaalihii inay ku ciyaaraan oo lacagtay doonaan bay sell iyo buy tay doonaan ugu ciyaari lahaayeen
laakiin oo hadday saa sameeyaan dee waxaa shirkadahoodii iyo kambanyadoodii iyo xoodii baan shaqaynayn oo dee sharciga lagu qaadaya si laakiin waxay u shaqaystaan sharciyeysan oo wixii aqoon ku dhisan bay samaynayaanoo maxay samayn doonaan halkan bay suuqii bay uga geli doonaan iyagoo baygii ku jira ay bartaas sel uga soo geli doonaan selka ay u soo galeen way dhaqaajin doonaan baydan minus bay ku hayn doontaa yawmin al ayaam xilliga doontaa ku qaadatay ayay haddana suuqa dib usoo bush upgrayn doonaan oo ay xidhi doonaan baygii minuska ku haysay kadibna suuqa halkan ay sii geli doonaan oo waxay usii geli doonaan sel ayaa haddana mar kale uga faa'iideyn doonaan bal tusaalahaas aynu tusaalayno iyagoo tusaale ah aynu baadhno kuwaynu hadda baadhanaynay kuwii hadda aynu baadhanaynay ee u dambeeyey ayaynu labadaba ka helaynaa halkan maxaynu ku sheegnay markii hore halkan waxaynu ku sheegnay inay liquidity tahay waayo liquidity u tahay waxay liquidity u tahay waa laga kacay mar labaad baa laga kacay mar saddexaad baa soo kale markii horeysa laga kacay waa liquidity maxaynu sugaynaa waxaynu sugaynaa liquidity-kan in la qaato maxaa qaatay mitigation waxaan qaatay maxaa loo yaqaanaa mitigationku maalinku lacagtii qaatay meesha ka saaray suuqii muxuu aaday suuqii bay buu aaday suuqii muxuu aaday bay ayuu suuqii aaday oo adiga arkaya inta bibuu kacay wuxuu kacay 270 iyo dhowr bib ayuu dhaqaaq u fiirso sidoo kale halkan maxaad ku arkaysaa inuu halkan ka sameeyay sidoo kale intii leg suuqa ab buu ahaa halkan buu ka galay consolidation yaroo like liquidity maxaa qaatay mitigationkii ku dhacay kan ayuu noqday ee liquidity-ga cunay waa inuu saa uga hoos maraa liquidity-gu markuu saa uga hoos maray muxuu sameeyey suuqii muxuu dhaqaajiyey abmove okay suuqii wuxuu dhaqaajiyey saad arkaysid abmove ayuu dhaqaajiyey xaggan aynu soo soconno halkan u fiirso maxaa ku jira liquidity baa ku jira mitigation baa ku jira mitigation ayaa ku jira walibana mitigation kan laftirkiisa wuxuu ku beegmaya dad xaggan ka eegtana muxuu ku beegmayaa dee order block buu ku beegmayaa wuxuu ku beegmayaa order block oo waa inta istaraatiijiyadeenu ku dhisnaan doontaba laakiin inagu hadda uma baahnin order block iyo istaraatiijiyada waxaan u baahanay liquidity waa liquidity-ga waa kan yaa cunay liquidity-gani waxaa cunay this is a mitigation kaasaa cunay maalinkuu cunay muxuu sameeyey suuqii wuxuu sameeyey in uu aaday korka isku shareeray runtii waa wax cajiiba markaad sidoo kale u fahanto waxaa loo yaqaano institutionsku sida ay suuqa u mitigate gareeyaan iyo waxyaabaha runtii ay sameeyaan ay dadka maxay hayday ku lugooyaan halkan maxaad ku arkaysaa hadda halkan inay liquidity tahay waayo liquidity tahay halkaasi maxay ahayd liquidity ay ahayd mitigation baa ku dhacay suuqii muxuu soo aaday sel ayuu soo aaday hadda maxaad arkaysaa sidoo kale haddana waxaad arkaysaa suuqu inuu sameynayo liquidity bull inuu halkan ka sameynayo liquidity bull uu ka sameynayo halkan liquidity ka sameynayo halkan goor uu jabiyaba uu jabin doono meel sare tegi doono kadibna uu daadan doono haddii markaasi price actionka iyo waxyaabaha kale suuqa lala doonayo ayna taageeraan waa laba qodob oo runtii aan kala hadhayn waxaa loo yaqaano mitigationka iyo waxaa loo yaqaano liquidity bullka liquidity-ga maxaa doonaya liquidity-ga waxaan ku iri soo hel meel suuqa siman meel double top ama triple top ama double top aad u taqaanid soo hel halkaasaa loo yaqaanaa liquidity bull xagga kale maxay ka noqonaysaa double top bay ka noqonaysaa oo kale sidoo kale ay ka noqonaysaa saasoo kale ka noqonaysaa ama sidoo kale ka noqonaysaa saasoo kale ka noqonaysaa xaggaas maxay noqon doontaa liquidity bay noqon doontaa mitigation-kuna muxuu noqonaya mitigation wuxuu noqon doonaa lacagtii halkan taalay halkan lacag baa taalo waa rune halkan dadku halkii doonayeen inay buy uga galaan halkan ayuu midfac lagu dhufan doonaa mitigation loo yaqaano halkan waa meel adag oo resistance level waa meel adag waan run waan arkaa laakiin dad baa u bareeri doona oo dadka lacagtooda khasaarin doona oo mitigation ku dhufan doona labada qodob ayay casharkeenu uu ku saabsanaa practicalkan insha Allah waxaan rajaynayaa in qof waliba ku celcelin doono mar iyo laba iyo saddex ba casharkana laba iyo saddex ba uu daawan doono sidoo kale Zoom-kana insha Allah waan ku falanqeyn doonaa wixii su'aalaana insha Allah sida ayuu arday walba uga bogan doonaa وإنه يعشر كعشر كالحجة يقيبتها كحجة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.